السلام عليكم أصحابتا. عيد مبارك، كل عام وأنتم بالخير. عيد كان عيديسا ربي هنقو قارسيو عافيمات بش يبرواقو. عيد كان مانتا waxaan doonayaa inaan idin kula ciido oo aan idin kula wadaago article aan ka soo akhristay website ka la yiraahdo Success oo aan u arkay inuu faa'iido inoo leeyahay anigana uu faa'iido ii leeyahay idinkana faa'iido idin leeyahay. Article-kani wuxuu oranayaa oo ka hadlayaa 16 caado oo dadka taajiriinta ah study lagu sameeyay dadka adduunka taajiriinta ah hantida badan shaqaystay 16 caado oo ay ka siman yihiin markii study-ga lagu sameeyay lagu soo koobay. Marka 16 caado laba qaybood waan kala qaybinayaa laba xilqadood. Xilqada koobaadna 8 baan ku soo kafar gareynaynaa, xilqada labaadna 8. 16 caado waxay oranayaan oo ugu horeeya number 1 ah qodobka koobaad ah live within your means. Live within your means waxay noqonaysaa markaan Soomaali ku turjino inaad ku noolaato nolol aad awoodi karto maaliyad ahaan oo aanad noqon qof faqiir mustakbir ah oo wixii uu shaqaystay wax ka badan ama wax aanu awoodin kharash gareeya oo wax aanu awoodin dusha iska saara deyn aanu awoodin qaata kharashaad badan oo aanu awoodin dhagala. taas waxay kugu kalifaysaa ama ay ku sabaysaa inaad noqoto qof mar walba deyn ku jira oo halis ku jira. Live within your means saddex qodob ayaa u halbowle ah. Number 1 inaad budgeting ku samaysato kharashaadkaaga iyo wixii aad shaqaysato. Inaad budget samaysato. Budgetkaas oo aad u qaybiso waxaad kharash gareynayso expenses, waxaad save gareynayso iyo waxaad maal gashi ku samaysanayso. Saddexdaas inaad u kala jabiso oo aad u kala qaybiso budgetkaaga. qodobkaas waa qodobka koobaad oo qodob aad u muhiim ah. qodobka labaad waxa weeye don't gamble. ha khamaarin lacagtaada aad sida adag ku soo shaqaysatay ha iskaga khamaarin. khamaarku waxa weeye aynu naqaanaa khamaarku waa lacagtaada oo diiniyan ba xalaal maaha laakiin waxyaabo badan ayaa hoos gala oo khamaar noqon kara oo sida ay kamid tahay inaad lacagtaadii meel riskiya ama wax maalgashi u muuqda oo laakiin khatar ah aad geliso oo lacagtaada halka kaaga burburto. waxa tusaale u noqon kara oo iminka dadka Soomaalida lagu dhacaa waxyaabahan schemeska loo yaqaan forex-ka ama pyramid schemeska oo aan runtii forex sax ahayn laakiin dadka Soomaalida lagu dhaco oo la yiraahdo $1,000 ama $2,000 keen ama $10,000 ama $100,000 lacagtaada waxa lagu soo celinayaa 100%. waxaasna wax adduunka ka dhaca maaha waa wax dadka masaakiinta ah lacagta lagaga furto. lacagtaada aad kasbatay waa inaad si adag u ilaashato meel aad hubto aad ku maalgashato. qodobkaasna waa qodobka labaad. qodobka saddexaad waxa weeye read every day. maalin walba wax akhriso. qodobkan waa qodob aad u muhiim ah. akhrisku nolosha muhiim ayuu yahay. qofku ka akhris badan yahay ayuu ka aqoon badan yahay, ka information badan yahay oo xogtu haya ka badan tahay adduunka kaga xidhan yahay. waxa la yiri 77% dadkan richka ah ama hantida badan sameeyay maalin walba ugu yaraan 30 minute ayay wax akhristaan. waxay akhristaan waxyaabaha businesskooda la xiriira, waxyaabaha shaqooyinkooda la xiriira, waxyaabaha adduunka iyo isu bedelayo la xiriira. kadib qofkii informative buu noqonayaa, fursad walbana waa uu ka faa'iideysanayaa markuu noqdo qof wax akhriya. akhrisku wuxuu ka dhigaa qof smart ah oo information badan baad haysataa oo qofka wax akhriya xitaa asxaabtiisa markuu la sheekeysanayo dadka markuu la sheekeysanayo doodihiisu waxay ku salaysan yihiin doodo aqoonaysan. wax kasta aqoon buu ku bandhigayaa oo ku cabiraya. qodobka afraad waxa weeye less time for social media. social media waqtiga badan inaga qaatay badankeena inaad waqti yar ku soo xadido. qof doonaya inuu nolosha horumar ballaaran ka gaaro, hanti badan samaysto, dad badan caawiyo, family-giisa caawiyo, dalkiisa caawiyo, waqti uma helo uu social media 24 saacadood ku jiro. marka inuu xadido qofku social media isticmaalkiisa waqti yar oo entertainment ahaan iyo information ahaan ka raadsanayo uu qaato laakiin waqtigaaga oo dhami aanu noqon inaad social media ku jirto iyo filimada iyo waxyaabaha waqtiga badan inaga qaata. qodobka shanaad waxa weeye control your emotions. emotionskaaga iyo dareenkaaga iyo tacaadufkaaga waa inaad controlshid. waxa la yiri study-gan lagu sheegay 69%
dadka aan horumarka gaarin ama failure-ka noqday waa dad aan controlin waxa afkooda kasoo baxaya. wax walba oo maskaxdooda kusoo dhaca way yidhaahdaan, oo afkooda kusoo dhaca way yidhahdaan. taasina waxay keentay inay dad badan isku dhacaan, xidhiidho badan ka burburaan. halka dhanka kale 94% dadka horumarka gaadhay ay yihiin dad waxa kelmad kasta uu odhanayo ka fikiraya, odhanayo kelmadani maxay saameyn leedahay, miyay cid dhibaysaa, miyay wax igu keenaysaa. kadibna taas waxay keenaysaa inuu xidhiidho badan yeesho, in dadkao dhan ay saaxiib noqdaan, in dad badan ay wada socdaan oo aanu afkiisu u sababin, carabkiisu u sababin in dadku ka fogaadaan. qodobka labaad waxa weeye network and volunteer, inaad samaysatid networking iyo volunteer inaad samaysid. networking waxa weeye inaad yeelatid dad dadka influentialka iyo dadka successfulka ah ee communitygaaga inaad xiriir la samaysatid, inaad asxaab la ka yeelatid si ay kuugu fududaadaan waxyaabo badan. dadka aad networking la samaysay waxa kaaga xidhmi kara waxyaabo fara badan, hadday ganacsi noqoto iyo hadday noqoto shaqooyinba, oo ay kuu fududeyn karaan. networking waa qodob aad u muhiim ah oo qofku uu noloshiisa horumar ballaaran ku gaarsiin karo. haddaad la saaxiibto 10 nin ee ugu horumarsan dalka, dee waxyaabo badan bay kuu fududeynayaan. waxaa laga yaabaa in qaar lacag hayaan oo fikir markaad keento ay ku maalgelin karaan. waxaa laga yaabaa qaar inay shaqooyin kugu recommend garayn karaan. aad bay muhiim tahay. volunteerkuna saas oo kale muhiim buu yahay. waa waqti aad geliso waxyaabaha aan profitka laga raadinayn oo aad dadkaaga u shaqayso, isaguna waa muhiim. qodobka 7 waxa weeye go above and beyond in work and business. shaqadaada iyo ganacsiga hadba midba kaad ku jirtaba 100% iyo wax ka badan waa inaad geliso dadaalka. waa inaad wax kastoo aad qabanaysid 200% geliso, oo shaqadaadu aad sida ugu quruxda badan uga soo baxdid. shaqadaada markaad dhamaysidna shaqooyin kale ku dartid oo aad horumarisid. taasi waxay kuu keenaysaa inaad horumar ballaaran dhinaca shaqada ka gaadhid. haddaad business wadidna waa inaad businesskaaga halka ugu sarreysa, adeega ugu sarreysa mar walba bixisaa. taasi waxay kuu keenaysaa customer fara badan inaad kasbatid, lacag badina ay kusoo gasho. qodobka u dambeeya ee 8aad waxa weeye xilqadan kusoo koobaynaa set goals not wishes. waa inaad diyaarsatid ahdaaf oo aanad keliya noqon qof riyooda wishes oo yiraahdo haddaan waxaa heli lahaa, laakiin aad hadaf samaysatid. haddii aad doonayso inaad qof business ama aad business abuurtid, aanad odhan haddaan business bilaabi lahaa, laakiin aad tiraahid business baan bilaabayaa 2021 ama 2020 bisha waxaasan ka bilaabayaa, uu noqdo wax qoran oo hadaf cad ah oo kuu qoran uu noqdo. 70% dadka horumaray ama dadka taajiriinta ahi ugu yaraan hal gool ayay leeyihiin, oo ay goolkaas oo ay daba socdaan oo ay ka midho dhaliyaan. dadka aan horumarka badan gaadhini ama failure-ka noqday nolosha aan haba yaraatee gool samaysan ilaa riyo maalmeed iskaga jira. intaasaan kusoo koobaya. waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iideen. ciid mubaarak, kullu caam wa antum bil khayr. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.